أهل الجنة جرد مرد كحلا لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم بالنبي يقول أهل الجنة جرد مرد أهل الجنة قد يلن مايان تمت دغرنا يلن مايان حقا ولا ملكلا تمت بدنا يلن مايان قدنا يلن مايان بالنبي يقول كحلا عنده غنا واحد مودا عنده كحولين لو مرياد مودا بل ويبكو سميسن تهيبا لا يفنى شبابهم dhallinyarnimadoodu ma gabowda buu nebigu yidhi 3 jir wa fii riwaayatin 30 jir baa lagu joojinayaa ama 3 jir intaa ka yaraani maayaan mana dhaafayaan laa yafnaa shabaabuhum walaa tablaa thiyaabuhum dharkay xidhaana ma baaliyo buu rasuulku yidhi jannada dhexdeeda suuq baa ku yaalla suuq aljumuca la yidhaah suuqaa bay ahlujannuhu iskugu imanayaan buu rasuulku yidhi fatahubbu calayhim riixun min ashimaal dabayl ayaa xaggaa kaga iman doonta dhinaca bidix dabayshaasaa wejigoogii ku dhifanaysa suuraddoodii bay beddilaysaa buu nebigu yidhi kalarka dharkana way beddilaysaa iyagoo kalarkay xaafadda kaga tegeen dharkoogu kalarkii maaha wejigoogu kalarkii maaha ayay ku soo noqonayaan dumarkoogiiyo xawraadoodii xuralcayntii baa odhan doonta war markaad suuqa nooga baxdeen aad nagu soo noqoteen dharkiinni waa isbeddelay kalarkiinni waa isa soo beddelay waa ini sidee markaaba iyakuuna odhanayaan wallaahi annakana intaan niga maqnayn waanayni sii beddelay ninkana suuqa adduunyada markaan tagno maxaan kala soo noqonaa qurux mise foolxumo boosboos baad kala soo noqon iyo cawlaan iyo siigo iyo dhafoorkaaga dhaf baa ka muuqanaya markiiba suuqa jannada ku yaallana qurux baad la soo noqon qurux dharkaagu baaliyoobi maayo dhallinyarnimadaadu gaboobi mayso mitir iyo badhna la ekaani maysida waxaad noqonaysaa dhararkii nebi aadam calayhi salaam 60 diraacan fi samaa wa 30 mitir baa lagu qiyaasaa ma gaboobaysid ma dhimanaysid ma bukoonaysid ma baahanaysid baytalmay geli maysid ma seexanaysid daraariya habeen waad iska ciyaariyo tuman insha allah dhahada qulu insha allah haweenka jannada nabigeena ka sheekeeyay calayhi salaatu wassalaam nisaa aljanna haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey buu rasuulku yidhi mid ka mida iyaka haweenka jannada muuminka loogu diyaariyey mid ka mida buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo bixi lahayd oo adduunka loo soo saari lahaa udgoonka jidhkayga ka soo baxaya buu nebigu yidhi ayaa samada iyo cirka isqabsan lahaa buu rasuulku yidhi gabadha muuminadda ee jannada galaysa muuminka jannada loogu diyaariyey hadday adduunyada u soo bixi lahayd oy dhoolla caddayn lahaydna iftiinka iligeyga ka soo baxa ayaa cadcadda iftiinkayga shiiqin lahaa buu rasuulku yidhi xawralcaynta ka mida faryaradeedaa yar buu nebigu yidhi hadday adduunyada u soo saari lahayd ragga adduunka ku nool oo dhan baa fitnoobi lahaayoo biyuhu ka iman lahaayeen buu rasuulku yidhi marada yaree madaxa ku sidato waa masarka yar madaxa ku sidato ayaa adduunyadoo dhan waxa dunyaaloo dhan ka khayr badan buu rasuulku yidhi muuminku jannada markuu galana muraayad u baahani maaye xawralcaynta dhuunteedu isku daawanayaa markaasuu isku eegayaa wejigeeguu akhrisanayaa waxaa ku qoran naxnu raadiyaatu falaa naskhad annaku waxaa nahay kuwa ninkooga raalli ka ah oo weligood aanan cadhoonayn wa naxnu alkhaalidaatu falaa namuut annaku waxaa nahay kuwii weligood jannada ku waaryaayey ee dhimasho aan u saaxiib noqonayn wa naxnu naacimaatu falaa nab'as annaku waxaa nahay kuwii alla u nicmeeyey balaayo iyo buus iyo dhibaato aanan arkayn tuubaa liman kaana lanaa wa kunnaa lahu ka noo ahaada nin een annakuna xaasu noqonnaa liibaane bay leeyihiin ibnu cabbaas allaha raalli ka noqday isaga iyo aabihiibe muuminka banka qiyaame kitaabkiisa gacanta midig marka laga siiyo waatan aayadda qur-aanka ilaahay ku sheegay wa ammaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira wayanqalibu ilaa ahlihi masruura ehelkaagu kuwan adduunka aad ku haysata maaha ehelkan adduunyada aad ku haysato
ibtilaa baa laguu siiyey ikhtibaar waa lagugu eegayaa inay ilaahay daacaddiisa ku seejiyaan iyo inaad daacadda ilaahay aad ku fulisid baa lagugu eegayaa laakiin ehelkaaga runtu waxa weeyaan waa ka maalinka qiyaamaha muuminka gacanta midig kitaabka marka laga siiyo ee xisaab yaroo fudud la xisaabiyo markaabuu u gadoomayaa baa ilaahay yidhi ehelkiisii oo sugaya ayuu xaggooga u noqonayaa buu ilaahay yidhi albaabka jannaday joogaanay ku sugayaan baa leeyihi albaabkay ku sugayaan kitaabkiisii buu gacanta midig ka qaatay xisaab fudud baa la fudaydiyey xisaab fudud waa maxay lama baadhbaadhin buuggiisii lama baadhba haddii la baadhbaadho waa khatar ilaahay baa asturay oo naxariistiisii buu huwiyey addoon baa lala soo keliyoobi doonaa banka qiyaama buu nebigu yidhi oo la odhan doonaa adiga rabbi baa kuu yeedhaye soo kac markaasaa ilaahay caza wajalla sitrigiisaa ilaahay huwini doonaa markaasuu ilaahay addoonka uu la hadlayaa hadalka addoonkiiyo rabbigiisa dhex maraya makhluuqu maqli maayaan malaa'igtu maqli maayaan muqarrabiintu maqli maayaan waa laga qarinayaa waxa uu ilaahay qirsiin doonaa dunuubtii adduunka dusheeda addoonkan uu ku qarsanayay baa ilaahay u sheegi doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkaygiiyow dembigii caynkaas iyo caynkaa ahaa ee maalin heblaayo halkaa aad ku samayseen ma xasuusan tahay markaasuu leeyahay markaa buu ilaahay odhan doonaa adduunka dusheedana waan ku asturay maantana waa kuu dembi dhaafay kitaabkiisaa gacanta midig laga siinayaa deedna xagga iyo jannadu u ordaya markaas allah inaga dhigo kuwaas maydaan dembi lahayn muu inagu jiraa may macsuumiin ma nihin dembi wuu naga dhacayaa laakiin naxariista ilaahay baa ballaadhan ilaahay naxariistiisaan rajaynaynaa mar walba ka quusan mayno dadkana ka quudin mayno naxariista ilaahay dadkana ka quusin mayno muuminka markaa kitaabka la siiyo ehelkiisii buu ku noqonayaa ibnu cabbaas radia allaahu canhuma ayaa yidhi mid kasta oo kitaabka gacanta midig laga siiyey xawraadiisii baa iridda u taagan oo sugaysa markaa buu daymoonayaa daymashada oo keliya ayaa qaadanaysaa la yidhi 70 sannadood arooska habeenka ugu horreysay xaaskaaga lagu soo hooyo 20 daqiiqo saa ma u eegi kartaa war maxaad naga eegi bay ku odhan indhahay faraha kaa geli maxaad yani maba haleelaysid ba adduunka dusheeda 20 daqiiqo qurux intaa la egoo la eega dadka adduunka jooga ilaahay maba siinba fa maxaad u malayn gabadha 70 sano aad daawanaysid quruxdeeda iyo jamaalkeyga ibnu cabbaas wuxuu yidhi laakiin ayaa daawan doona ma taqaanaa waa ka adduunka intuu joogo maxaarimta indhihiisa ka laabta kaasaa xuurlacaynta daawashadeeda ku raaxaysan doona waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim udaymoon saasuu u daymoon muuminku 70 sannadood tucaaniquhu wa yucaaniquha ku boodi marka iyadna way ku soo boodi mucaanaqada waa qooroqooraynta mucaanaqadoo keliya buuhi ibnu cabbaas haddana 70 sano kole haddana haysan buui sidaa unu haysan markuu jannadii arka naciimteedii 4 shay oo adduunyada inta la joogay qofka bini aadamka nolosha ku qaraaraynaysay ayaa ahlaaljannaha maskaxdooda ku soo dhici doona waa afartee waa geeridii waa gabowgii waa baahidii waa bogtaantii afartaabaa maskaxdooda ku soo dhici doonta ma naciimka intan la eg ayaa ilaahayna siiyey markaasay afartaa xasuusanayaan baa la yidhi xagga saraa laga dhawaaqi oo la odhan doonaa yaa ahla aljanna inna lakum an taxyow falaa tamuutuu abada yaa ahla aljanna maanta laga bilaabaa jannadan waxaad ku dhex leedihiin nolol daa'ima dhimasho dambe arki maysaan nicmad joogto ah oo nuqsaan dambe aanan lahayn dhallinyarnimo gabow dambe aan lahayn caafimaad qab xanuun dambe aanan lahayn allah ina siiyo jannadaasaa ilaahay inoogu baaqayaa maalin walba oo lagu leeyahay salaadda markaad tukanayso ee mu'adinku uu ku leeyahay xaya cala asalaax xaya cala alfalaax jannadaa ishorkeen jannadaa ku xisaabta bishii rabadaan baa soo gashay jannadaa ishorkeen
sadaqad baa bixi lagaa leeyahay jannada is horkeen quraan baa lagu leeyahay kaale akhri jannada is horkeen aakhira wax u bixi baa lagu leeyahay jannada is horkeen markaa buu nabigu calayhi salaatu wasalaam majliskiisa isagoo maalin fadhiya ayay nimankii muhaajiriintii maka ka soo hijrooday ayaa sare kacoo nabiga ay ku yidhaahdeen nabi allow magaalada maka annaku aan ka imanay ka soo baxnay maa u zamzam baan ku haysanno iin ma ahayn halkan biyuhu waa in magaalada madiina ceelashana niman yahuuda inta badan iska haysta lacagaan ku iibsanana ma haysano markaa ninkii ceelka bi'ru ruuma lahaa ayuu nebigu u tago wuxuu ku yidhi asxaabatayda muhaajiriintayda biyaha u fasaxa ka cabbaane markaasuu u fasixi maayo oo anu ceelkaa yar baan leehayo biyaha yar baan iibiyaayo reerkayga ayaa ku biiliyaa markaa buu nebigu ku yidhi bicniihi bicaynin fi ljanna il jannada ku taalla ceelkaagaa ku bedilo ku iibso markaasuu yidhi may ceelkaygaa yar iska iibin maayo iska kaydaa buu ka yidhi cuhmaan binu cafaan radia allaahu canhu oo daki ahaa oo caqli badnaa oo inshiisu meel dheer wax ka arkaayey oo basiiro ilaahay uu siiyey ayaa hadalkii nebiga qalbigiisa ku dhibcay bicniihi bicayni iljanna il jannada ku taalla ceelka igaga iibso markaa buu ninkii iska diiday ninkii ceelka lahaa cuhmaan baa ninkii u tagoo yidhi ceelkaaga haddii lagaa yidhahda lacag ku iibi ma iibin lahayd haa waan iibin lahaa way gorgortameen markaa waxay ku heshiyeen 30,000 oo dirham cuhmaan lacagtiibuu soo qaado uu dhigay ceelka furihiisa igu soo wareeji buu ka yidhi uu ka soo qaatay rasuulkii calayhi salaatu wasalaam buu u keeno wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah ceelkii bi'ru ruuma haddii aan keeno ishii jannada ku taallee ninkaa loo ballan qaado iska diiday aniga ma lai ballan qaadayaa markaa buu nebigu yidhi haa markaa buu yidhi ceelka furihiisii waa kan asxaabtaadana waa waqaf uu yahay ha dhaansadaan buu yidhi ceelka haddooto biyihiisa waa waqaf hal isticmaala buu rasuul allah markaa buu nebigu farxay indhaha ayuu nebigu markaa kor u qaado wuxuu yidhi cusmaan ilaahow raalli baan ka noqday raalli ka noqo cusmaan maanta laga bilaabaa camal dambe hadduunan samaynba intaabuu jannada ku galay buu rasuulku yidhi bicniihi bicayni iljanna indheergarata dadkaas ahaa soo maha ya mise siyaasi salaadna aan tukanayn baa lagu odhan indheergarata weeyaanoo 50 saneen soo socda isbeddelka geeska afrika ka faalloodaay dhegaysta idaacad intoo la soo fadhiisay yaa allah caqliga aakhirada ku tusini waaya caqli maaha nolosha dambe caqliga kuu jeedin waaya caqli maaha araggu haddaad aakhirada ku arki weydo ood ku xisaabtami weydo arag saxa maaha janno hadday maqlaan asxaabta rasuulku waxay hayaan halkaaba iska dhigayeen marka jannadaasaan is hordhigaynaa markaan soomayno salaadayno sadaqada bixinayno zakada bixinayno waalidka u samafalayno janno nin baa nebiga u yimid oo yidhi jihaad baan rabaa oo inaad jihaad baxdaad u timid haa jannaad doonaysaa haa jannaan doonayaa nebi allah wax kale ma doonayo labadaadii waalid ma nool yihiin may hooyaan nool ma iyadoo kaa raalliyaa timiday mise iyadoo safarkaaga aan raalli ka ahayn maya iyadoo ooyaysaan ka imiday markaa buu nebigu uhi sow janno uma socotid haa hooyadaa ku noqo lugteeda qabso halkaa baad jannada ka geli doontaa adigu ilzim rijlayha uma aljanna buu nebigu uma aljanna lugteeda qabso jannada halkaa baad ka geli daacadda ilaahay markaad gudanayso waxaad is hordhigaysaa waa janno macsi markay naftiiyo shaydaanku kuugu yeedhaan ee shaydaanka iyo naftu ay ku yidhahdaan ilaahay caas oo dembiga samee oo waxaa ku dhac markay naftiiyo shaydaanku ku yidhaahdiin waa inaad is hordhigtaa ilaahay cadhadiisa is hordhig ina batsha rabbika la shadiid ina rabbaka labil irsaad ilaahay ku xisaabtin cadhadiisa ka cabsiyi naftaada markaas marka labadaasaa la doonaya ilaahay inaan ku caabudno طamacan khawfan wa طamaca cabsi iyo rajo cabsida goormaa la rabaa waa intaad caafimaadka haysid eed nolosha haysid ee dhallinyarada aad tahay eed amniga haysatid ilaahay cabsi ku caabud maalintaad heer xanuunsatidna ama xaalad adag ay kugu timaaddo ilaahay raxmadiisa raje markaas oo ha quusan oo waxaad tidhaahdaa naftaada waxaad ku tidhaahdaa rabbigay waa naxariis badane
ودقسي بدنه وكريم ويان إلهي وكريم قال لا شقينا سوى كريم كريم سيدي نكي حشك أسعدي مرأة اللي مركو إحرامك أحدي أيوم مغلي يقول لبيك اللهم لبيك مركا دوش يسال لقلي لا لبيك ولا سعديك حشك آذو سعوت الله ما أقبل سفر كآذو حمان قادتين إلهي كأقبل ما يسكجوك هذا البعض شكل الدواء مدي سجد قداشي سجوجا هذا الكلام مقشيي كيف كوير يا شيخ هذا كحجنا دبو لبيك اللهم لبيك مركا ترى على الجواب تماد مغلي مركا ما مقشها وان مغلي ما هذا المقشها هذا المغلي وعد تضبي الله باتسنو أيان إلهي قريجي سو قصدي مرة اللي مركان حشك أنس إحرامك صوح الدو إيه تلبية الصوب لا بابا لا لبيك ولا سعديك بالليلي حي ووحل دوش شيء ده لقلي حي حشكاغا عمرضادا سعيغاغا عباددا ادو سعوتو الهي كا اقبل ما يبا ليليهي اسكا جوج با ليليهي حدان غوريغيسا كا جوجو او سعودكا ان حقيسا او دقاقي ان كا جوجو حقي كلو او تغا بليشيك بودي ادان تلا كا قادن بليشيك بوكاي ما يجرتا مeel kale wuxuu ama hal lay aqbalo ama yaan lay aqbalin أنا إلهي بان السعودة حقي سبولي مالك الأمة السعودة كقوسا ما إلهي الرحمة ديس وكريم والرحيم الرحمن وحليم وستار عبت نردم مقرنة يا مات دول قاد بدنه ورمع عدالة إلهي بان كجوك الدوية دبالي دول ستر إيا دول قاد إلهي بان كجوكنا ستر أستر كيس إلهي بان أستريا إلهي بين نوض القادنية لكن هذه عدالة اللي يجي لها أعماش الجركنا ما تكسوف ليس هي عصيان كان إلهي عاصنا إنه هي سدا معاصده والضوين كنا مقاحيه هنا قريه هنا إلهي اللوجو عاصنا يو دقيقة أدون كنا كنا ولا نحق ما يلنا المانت تضبي الله ما تسنا المغلا يا أبو يري ولا يقول جواب يا ولا إلهي هاي إلهي حشاك كأقبل ما يسكجو دما جوجا كجوجي ما يوان سعدا غلوريا ويمدي دواف كيبو بلابي سعيغي مركو دميي ايا دوشيسا لغا دواقو ليدي لبيك وسعديك وانكو اقبلني وكا اجيبني تضبي الله باتكي هوري حجدينا الهي وكا اقبلي بلغو كيبا لما قشيه مركو رمغلاي مركا ابو الشيخ والله اقبلي عودا الباب كي سمعيني الباب كلو قراعينا ما جرتبوكي ما قوسنين أنا أقول إلهي بنا يسلم بركة إلهي الرحمة ديسا كقوسن ما إنه ذات كان كقوسن ما إنه بل دوان ترغيبين إنا ورنا حريسنا إنا دعوة آيان وقويا إنا دعوة مركان وقويا إنا وندبرين إنا بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معصرين حديث كاسدوك يمدي لنا عربية أيها مساجد النبي قد حديثة عورديسي انتو الله صوبحي أيها مسجد النبي قد حديثة كو كاذيي صحابة مركاسي كو ياعين مركاب النبي عليه الصلاة والسلام مه واركد جوك صدا مركاب النبي صحابة دي كجوجيي مركاب النبي كو يري واركد جوك صدا كاذيسا كو قوينين كجوك صدا هلكو كو كاذيين بيك كبنا كو شربوه استجيب النبي مركا وياري إيه كان هذا مركز النبي وفريسك وفريسي مساجدك إلهي بالله أعمال إله اللي وعبده صلاة اللي قلت كذا قرآن كان اللي أخرستا تسبيح هي تحميد هي تكبير بالله قلت تلقى له ما ركتاني وحكى للمسجد اللي ما تلقى له الفرش سجيب كشك يوري والله إمد بسن وإمد دلن وإما أفلقادين معلن إساق الله مدى هرو ما أركن دبدا من هو أركن ما يقول معلن إساق الله مدى إلهو أنك يا محمد نون نحريسو عدك لها نون نحريسو بوكي صحابة دي سيبوا نبي كوكويد هالكو كوكاديي بيكبضا كشبع إنما بعثتم ميسرين بعثتم وحادونك ليني كاني وليني سو ساري إن دتك حق أردي برسانة إن هذا مدى حق كوات كيسان دونك ليني مكاني برسولك